inkastoo xaaladda magaalada Boosaaso ay tahay mid degan waxaa haddana jira cabsi laga qabo dagaal xilli waliba ka qarxi kara magaaladaasi. ciidamo ishaya oo kala fikir ah ayaa saacadihii la soo dhaafay ku sii qulqulaya magaalada kuwaas oo ka kala amar qaadanaya wasaaradda amniga ee Puntland iyo taliska ciidamada BSF oo daqiiqadihii la soo dhaafay madaxdoodu hadallo adag warbaahinta isu marinayeen. madaxweynaha Puntland Siciid Dani ayaa wareegto uu soo saaray 24kii bishan ku sheegay inuu xilkii ka xayuubiyay agaasimihii ciidanka difaaca Puntland ee BSF isagoona bedelkiisa loo magacaabay Sareeye Guuto Maxamed Amiin Cabdullaahi Xaaji Khayr. wareegtadaas oo ka careysiisay taliska dhexe ee ciidanka BSF ayaa saacado kadib bartooda gaarka ee Facebook ku soo daabaceen qoraal laga dheehanayay diidmo toos ah oo ay ka keeneen magacaabista agaasimaha cusub. wixii xilligaasi ka dambeeyay waxaa toos u soo shaabaxay khilaaf ka dhashay wareegtada madaxweyne Dani waxaana ciidamada BSF ay bilaabeen inay soo faarujiyaan dhammaan furmihii dagaal oo ay ku lahaayeen buraha goolis ee gobolka Bari halkaas oo sanooyin badan ay kula dagaalamayeen al-shabaab. wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamed Maxamed Galan oo Boosaaso u tagay inuu xilalka u kala wareejiyo saraakiisha wareegtada la isugu bedelay ayaa hadal uu warbaahinta siiyay mar kale ka careysiiyay BSF isagoona sheegay inay qasab tahay inay dhacdo xafladda xil wareejinta. si la mid ah sidii hore oo kale BSF ayaa durba jawaab ka bixisay hadalka wasiir Galan waxaana saraakiil ka tirsan taliskaasi ay sheegeen in marnaba aysan u hoggaansami doonin awaamirta ka soo baxday wasaaradda amniga iyo guud ahaanba maamulka Puntland. war-saxaafadeed ku qoran luqadda Ingiriiska kuna taariikhaysan 26 November balse warbaahinta soo gaaray saaka ayaa mar kale BSF waxay ku sheegtay hadallo kaada kuwii hore iyadoona laga dheehanaya hadalkeeda in wasaaradda amniga ay ku tuhmayso inay xiriir la leedahay al-shabaab iyo Daacish. BSF oo ah cudud military oo muddo sanooyin ka jirtay Puntland ayaa waxa aasaasay tababaray isla markaana maalgeliyay dawladda Mareykanka waxaana la aaminsan yahay inay ka madax banaan tahay hay'adaha kale ee Puntland. hay-adan oo hoggaankeeda hal famil isku soo bedeleen ayaa waxa agaasimihii ugu horeeyay ka noqday Cusmaan Cabdullaahi Diyaano balse geeridiisii kadib waxa xilka la wareegay mid ka mid ah wiilashiisa oo lagu magacaabo Asad Cusmaan Cabdullaahi Diyaano. General Asad oo muddo hogaaminaya hay-adda ayaa xilkaasi ku wareejiyay walaalkii oo lagu magacaabo Maxamuud Cusmaan kadib markii Asad uu isku sharaxay xilka madaxtinimada Puntland balse uu tartankaasi kaga guuleystay madaxweynaha hadda maamulkaasi hogaamiya Siciid Dani. General Asad oo abaabulay ururo siyaasadeed ayaa muddooyinkii dambe loolan siyaasadeed la galay madaxweyne Dani waxaana dad badan ay u arkaan khilaafkan cusub ee ka dhex urtay Dani iyo BSF inuu salka ku hayo loolanka Dani kala dhaxeeya Asad Diyaano oo la aaminsan yahay in wali uusan ka dhex bixin ciidankii uu agaasima u ahaan jiray. si kastaba waxaa hadda soconaya dadaalo lagu doonayo in lagu xaliyo xiisadda iyo dhaqdhaqaaqyada ka soconaya magaalada Boosaaso kuwaas oo ay wadaan isimada dhaqanka oo ugu horeeyo boqorka beelaha dadka dega deegaanada maamulka Puntland. inaan magaalada qaximaan inaan xaafadaha laga qaxin inaan dadka la barakicin in nabadda iyo xasiloonida lagu dadaalo. ciidamadu inay waxay dirayska u siteen dhammaantood wadadkan iyo maslaxadooda iyo amnigooda inay iyagu dhibaato iyo culays ku noqdaan maaha. maamulkuna waxa loo dhistay waxa weeye inuu amniga iyo kala damaynta iyo nidaamka dawladnimo ee loo baahan yahay inuu wado. Cumar Lakimaan warbaahinta Nation Muqdisho.